شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa channelka kobcinta garaadka carruurta. haddii taa markuu hore soo booqato channelkeena ha iloobin subscribe kadibna aad furto calaamadda gambaleelka si uu kusoo gaaraan qisooyinka jimcada siina gaarsiin asxaabtaada oo jecel qisooyinka adigu share gareyna baraha bulshada. maanta waxaan idinaynaa qisadii ku saabsaneed ninkii sixroolaha soo islaamay qaybteeda koowaad. waxaan naga sheekeyn doonaa halkan, soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصدنا maanta waxay ka bilaabanaysaa waa jiri jiray nin saaxiroole ah. habeenada kamid ayuu soo baxay, wuxuu aaday hotel si uu u soo jiifto. markuu hurday wuxuu ku riyooday asiga oo dhintay oo qabriga la geeyay oo laga tagay oo cadaabkii cadaabul qabri la kulmay oo malaa'igtii biyo karkaraysa ku shubay. markaasi wuxuu maqlay qayli aad u weyn. wuxuu soo fiiriyay waaba saaxiibkiisii oo sixirka la shaqayn jiray oo mar hore dhintay. wuxuu ku dhahay, warniyow, fursad ayaa haysataa oo ku islaami kartid ee soo islaam. ninkii waa u qayliyay. dadkii oo dhan hoteelka joogay ayaa qolkiisa iskugu imaadeen. kadib ninkii waxaa lagu dhahay dhib ma jiro. wuxuu dhahay dhib ma jiro, iska taga. dadkii waa iska tageen. ninkii waa uu soo toosay, wuxuu u galay salaad sunno ah. jinniyaashii oo la shaqayn jiray ayaa u imaaday koo u dhaardhaaranayo la socod wanaagsan. qaybtii xigta ee qisadii ninkii saaxiroolihii soo islaamay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.